ilaa aan xaqiijinayno nimankan inaan dhammaan deegaanada Soomaaliyeed aan ka saarno marnaba inaanu kaan dib uga noqon hore inaan ugu sii soconaa la rabaa inaan sii xoojinaa la rabaa waxa la rabaa runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta halkan idinku nimaado meel qorraxaad fadhisan ma doonayo hadalka inaan ku sii dheeraado waqti badan inaan sii lumiyo ma rabo waxaan aad iyo aad aan idinkaga mahad celinaynaa garashada iyo halganka aad garateen inaad garab istaagtaan ciidamadii qaranka inaad garab istaagtaan xaqa adiidan gumaadka iyo dhibaatooyinka ay wadaan nimanka sharwadayaasha ay halkan ka kacay waxaan idinkaga mahad celinayaa ayadoo daruufo kala duwan runtii ay deegaanka ka jiraan oo biyo la'aanta ugu horeyso in aanay hakad idin gelin oo aad go'aansataan hooyooyinka Soomaaliyeed aabayaasha Soomaaliyeed gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed ee deegaanadan ku sugan ee naftooda iyo maalkooda ay baneysteen nimanka argagixisada ah inaad garataan in aanay fahmayn hadal aan xabada qoriga ku jirta aan ahayn aad iyo aad runtii taas idinkaga mahad celinaynaa daruufaha jira ee biyuhu ugu horeeyaan dabcan xildhibaanka ka hadlay dawladda Soomaaliyeed iyo madaxda qaranka Soomaaliyeed dabcan qorshe ayaa uga yaala iyo gobolkaba state-ka madaxda state-ka waxaan rajaynaynaa idanka Ilaahay sida ugu dhaqsiyaha badan in la dabooli doono arinta ayada waxaan noo soo haray nimanka argagixisada ah oo wali raadkoodu sii muuqdo waxaan hor yaal waxay yihiin laba arimood deegaanadii aan ka saarnay inaysan dib ugu soo laaban waa marka ugu horeysa oo fursadaas aan kaana siin deegaanadan haddaan mushkiladoodii iyo problemkoodii dhibaatooyinkoodii aan ka dul qaadnana wali waxay dul saaran yihiin hooyo Soomaaliyeed iyo aabba Soomaaliyeed wiil Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed oo shalay wixii ay deegaanadan ka sameynayeen ay hadda ka sameynayaan waxa laga yaabaa qolooyinka ay dul saaran yihiin sida adinku shalay markii horeba aadan ugu dhiiran ayaguna inaysan wali ku dhiiran inaan gaarno waayo marka si ay ugu dhiiradaan isaga dul qaadaan waxaan rabnaa marka shalay niyadii iyo moraalkii iyo Soomaalinimadii aad ku garab istaagteen ciidamada qaranka ee aad hubkiina u soo qaadateen ee qof walba uu uga soo dhaqaaqay meeshii uu joogay taas ilaa aan xaqiijinayno nimankan inaan dhammaan deegaanada Soomaaliyeed aan ka saarno marnaba inaanu kaan dib uga noqon hore inaan ugu sii soconaa la rabaa inaan sii xoojinaa la rabaa waxa la rabaa fursad ay dib ugu soo jeestaan inaanu kaan siin idanka Ilaahay kuwa wali dhuumaalaysanaya laga yaabo inay meelaha ku dhunsan yihiin oo jahay ka baxan ay laayihiin waxa la rabaa in laga daalin la raadiyo ilaa la helay taa marka inta uga gudbo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay sida adinku aad u garab istaagteen oo asigana idin garab istaago wuxuu diyaar u yahay wax walba ee gacantiisa ku jira inuu idin la garab istaago waxaan idinka ballan qaadaynaa hadday noqon lahayd saanida aad ku dirir lahaydeen oo risaasta ugu horeyso iyo hadday noqon lahayd caafimaadkiina qofka wax gaaraan askariga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meesha uu maro inaad martaan taas ayaan ku dadaali doonaa wixii hadda wax gaareen waa ogtiin ciidamadu mas'uuliyadaas way qaateen hadda wixii ka dambeeya wixii wax naga gaaraan waa qaadanayna sababtoo ah waa waajib muqaddas oo nasaar kaliya ma ahan inaad dagaalamaysaan inay ku tahay dad muwaadiniin Soomaaliyeed mas'uuliyadda dadka aanu qaadnana kow ka ahaati sidaas awgeed marka taas Ilaahay idankiis ma ka doonto xildhibaanku sida uu sheegay waxay tahay inta aan laga daahin inaan ka daba tagno aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweey doonaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo kelimadaha ku haboon idin dhihi doona Ilaahay idankiis waa isgarab taaganahay waxaan xaqiijin doonaa idanka Ilaahay gabadha iyo wiilka Soomaaliyeed inay xurriyad ku noolaadaan oo ay ka baxaan gacanta nimanka sharwadayaasha inta ay nimankaas dul saaran yihiin dadka Soomaaliyeedna ma jiro hal qof oo muwaadin oo Soomaali oo xurriyad sheega kara ma jiro hal qof oo waxa uu leeyahay dhihi kara aniga iskale sababtoo ah hadiiba saacada ay rabaan iyo ku yimaadin intay rabaan ay ka qaadanayaan seed adigu sheega karta ma sheega karta maya waa nin awood u leeyahay inuu ku yimaado ku dhahayo guriga ka baxana jiifanaya doqonnimadiisa ari hadaad leedahay geel hadaad leedahay dukaan hadaad leedahay gaari hadaad leedahay saacada oo u heliyo awood oo aadan fahmin shartiisa ayuu ku yimaado ka qaadana taas intaysan ugu sameyn marka horaan u soo aragnay taas intaysan ugu sameyn marka marnaba waa inaan kaan u ogolaan hadda waa iska dul qaadnay dadka Soomaaliyeed oo kale mushkiladaha ku hayaan waa inaan ka dul qaadno waana in dhabarka taas noogu xirnaada
sida loo sheegayna ilaahay idankiis dabcan waxaad ka mid noqon doontaan fursaduhuna saamixi doonaan ilaahay idankiis ciidamada qaranka qof walba meesha ay rabto qofka kale rabta inay gurigeeda joogto oo meelaheeda joogtana meelaheeda joogi doontaa ilaahay idankiis ayadoo xura oo aan cidna ka baqin oo xitaa qoriga aan sidan oon u baahnaynba qofka bini'aadmiga waxa uu helo waxa ugu horeeya ugu wanaagsan waa amniga mar haddaan naftaada iyo maalkaaga la nabadgelinay ee gurigaagii lagugu yimiday ee gurigaagii naftaadina lagu goynaayo maalkaagina lagugu qaadanayo qofka shahiidu horta waa adiga qofka inuu dagaalamo waajib muqaddis ay ku tahay waa adiga waxa la rabaa marka ciidamada qaranku way idin daba taagan yihiin way idin hor taagan yihiin way idin garab taagan yihiin adinkana sidaas oo kale la rabaa inaad kuwa naga maqan inay ku soo biiraan adunkuna meesha aad ka wadaan inaad ka sii wadaan waxa laale waxaan heli karno taakuleen waa idin soo gaari doonaa ilaahay idinkiis taakuleen kaliya ma ahan ilaahay idinkiis waa idin imaan doona waan idin joogi doonaa aad baad u mahadsantihiin